magaalada Munich waxaa ku kulmaya weerarka ugu fiican Euro 2020 iyo difaaca ugu adag tartanka. taariikhda ayana sheegaysa markastoo Spain iyo France iska hor yimaadaan ciyaar ka tirsan Euro kii guuleysta koobka qaadi jiray. Euro 2020 ayaa la daawan doona mar kale iyadoo kulan xiiso badan Spain iyo Faransiiska isku heli doonaan Munich. kii guuleystana uu tagi doona finalka. kulankan wuxuu ka dhigan yahay inay kulmayaan xul difaaceedu wanaagsan yahay iyo xul weerarkoodu wanaagsan yahay. Spain ayaa dhalisay 12 gool waana in ka badan xul kastoo kale, halka France laga dhaliyay 1 gool 5 kulan ay ciyaareen. taa micnaheedu waa in Faransiisku uu ku fiican yahay difaacashada, Isbaanishkuna weerarkoodu halis yahay. Spain waa kuwa ugu cadcad tartanka maadaama ay garaaceen xul walba oo ka hor yimid. waxay ku dhameysteen kaalinta koobaad ee groupka dhimashada ay ku jireen Talyaani Croatia kadib 2 gool ay ku garaaceen Jarmalka wareegii quarter-finalka. Faransiiska ma soo bandhigin ciyaar lagu qanco, waxay ku guuldareysteen in dhaliyaan 1 gool oo furan ciyaaraha tartanka oo dhan iyadoo wareegii 16 ka adkaadeen Belgium wuxuuna gool iska dhalisaa kadib rikorayaal lama filaan ay ka adkaadeen Portugal. France iyo Spain ayaa had iyo jeer kuwa ugu muhiimsan taariikhda Euro. markasta labada xul ay sarkaan waxa koobka qaada xulkii guuleysta. waxay dhacday 1994 Faransiiska ayaa badiyay, sanadii 2000 France ayaa guusha qaaday, 2012 Spain ayaa guuleysatay. France ayaa rikoor fiican ka heystay tartamada waaweyn oo ka mid yahay koobka adduunka, waxayna 3 gool gaareen 1 kulan iyo barbaro. haddii Spain ay garaacdo Faransiiska waxay sidoo kale noqon doonaan xulkii ugu horeeyay 6 kulan oo xiriir ah guuleysta hal tartan oo Euro ah. dhanka France markii ay garaacaan Isbaanishka waxay yigsan karaan horyaalkooda saddexaad ee Yurub si ay u noqdaan qaranka guusha ugu badan la wadaaga Spain iyo Jarmalka, iyadoo finalkana ay tagi karaan haddii ay guuleystaan. xulku uu cadcad inuu guuleysan karo caawa waa xulkii Spain, iyadoo la ogeyn Faransiiska waxay samayn karaan.